السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتي صاحبي السود وهذا sidii caadiga ahayd waxaan noo bilowday taxanihii barashada suuqa sarifka lacagaha aqlaad. Magacaygu waa Yaasiin Cabdiraxmaan. Kusoo dhawaada channelkeena Halbeeg SOS Empire. Waxaana aan u furnay channelkan waxaa ka mid ah barashada suuqa sarifka lacagaha aqlaad oo af Soomaali ah, anagoo u istaagnay in aan bulshadeena Soomaaliyeed ee afka aan inta uga hadlayo fahmi karta in ay macluumaad fara badan ka fahanto suuqa sarifka lacagaha aqlaad iyo sida uu u shaqeeyo. hadduu Ilaahay yiraahdo caawa waxaan ku balansannahay in aan idinla wadaagno hordhaca hore ee suuqa sarifka lacagaha qalaad. Suuqan waxa uu yahay yaa ka shaqeysto, sidee looga shaqeystaa, maxaa lagu qabtaa suuqa sarifka lacagaha qalaad, iyo fursado badan oo kaa qarsoonay ayaan rajaynayaa in aad cashirkan ka fahmi doontid hadduu Allaha awoodda lehi yiraahdo. Okay, waxaan sameynaynaa markaa si aan gudaha u gudubno cashirkeena koowaad ee caawa hadduu Ilaahay yiraahdo aan ku bilaabano. Soo dhawaada saaxiibayaal mar kaleeto. Cashirkeenan caawa waxyaabaha aan rabno inaan ku baranno waxaa ka mid ah iyo sida uu forex u shaqeeyo ayaan idinkula wadaagi doonaa halkan. Okay, su'aasha ugu horeysa ee qof walba isweydiinaya waxa ay tahay xaqiiqda suuqan sarifka waa maxay? Suuqa sarifka lacagaha qalaad ee forex sidee ayuu u shaqeeyaa? Hordhaca sawirka muuqaalka hortiina ka muuqda waxaad ka fahmi kartaa in meesha waxa lagu kala ganacsado ay tahay lacag, taas oo aad kala sarifi doontid lacago kala duwan oo ay leeyihiin wadamo kala duwan. Okay, haddii aad rabtid marka in aad baratid sida uu u shaqeeyo suuqan sarifka lacagaha qalaad, waxa ugu horeeya ee lagaaga baahan yahay marka hore in aad ogaatid ayaa waxa ugu muhiimsan sidee ayay horta fursadan forex ku timid, intee ayay kasoo bilaabatay ganacsiga noocan ah. Forexna waxa uu ku saabsan yahay nolosha guud ee dadka kuweena hadda jooga iyo kuwii naga horreeyayba. Sidoo kaleeto systemyadii lasoo maray ayaanu ku baran doonaa. Qaybta ugu horeyso waa systemkii ugu horreeyay ee la isticmaalaa oo loo yaqaano barter system oo la isticmaalayay ku dhawaad 600,000 oo sano ama 6,000 oo sano aan dhahe. 6,000 oo sano waxaa la isticmaalayay systemkan loo yaqaano barter. Muxuu yahay marka systemkaasi? Markii hore sida caadiga ah waxaaba yaraatee lacag ah ma jiri jirin oo cash oo qofka uu isticmaali karo. Waxaa jirtay marka fursado kale oo dadku wax ku kala ganacsan jireen ama ay ku heli jireen baahiyahooda iyo waxyaabaha kale ay u baahan yihiin. Systemkaasi waxaa ka mid ah haddii aan haysto tufaax ama canab aan haysto, aan u baahanahay moos aan u baahanahay, waxa aan raadinayaa qof raba waxa aniga aan haysto iga bedelan karaa waxa isaga oo haystana aniga ay anfici karto. Tusaale waxaan haystaa tufaax iyo canab, waxaa jira qof kaleeto oo haysto moos oo raba tufaax, anigiina waxa aan rabaa moos. Qofkaasi waxaan isdhaafsanaynaa marka labada shay ee aan haysano, anigoo siinaya tufaaxi ama canabkii markaas aniga aan hayay labada mid ka mid ah oo isagoo u baahan yahay si aan uga helo mooska. Systemkaasi ayaa in muddo ah lagu shaqaysan jiray, waxaana loo yaqaanaa barter system. Kadib systemkaasi waa laga soo gudbay oo waxaa loo soo gudbay systemka dahabka oo asagana ku dhawaad 700 oo sano la isticmaalayay. Systemka dahabka waxa uu ku yimid sida hore aan soo sheegnay waagii hore barterka ama isdhaafsiga baahiyaha noocyaha kala duwan ee qofka waxa uu haysto si uu u bixiyo, si uu u helo waxa uu asaga u baahan yahay ayaa waxa ugu soo sheegnay in ay tahay barter. Isla sidoo kaleeto systemkaasi markii laga soo gudbay waxaa loo gudbay systemka dahabka. Si marka systemkii dahabka loogu shaqeeyo, qofku qasab kuma ahayn in uu haysto ama waxyaabihii kaleeto barterka la isticmaalayay qasab kuma ahayn. Si uu u helo wixii baahidiisa ah ama cunto ha noqoto ama wax kaleeto, waxaa qasab ku ahayd in uu haysto dahabkii oo uu ku bedelan jiray cunto ama wixii kale markaas uu u baahan yahay, haddii dhul uu gadanayo, haddii waxyaabo kaleeto oo aas-aasiga ama nolosha ku saabsan uu gadanayo. Systemkaasi ayaa in muddo ah lagu soo shaqaynayay ee dahabka. Kadib waxaa loo soo gudbay systemkan loo yaqaano paper billska. Systemkan paper billska markii uu yimid waxa uu daba socday dahabka, laakiin waa uu ka duwanaa sidii hore ee loo isticmaali jiray dahabka. Systemka markii uu yimid waxaa soo baxday warqad
ama noocyada hadda anaga aan u naqaano jeega oo kale warqadaasi oo wakiil ka ah qofka haysta dahabka intaas la eg rabana in uu alaab meel hebel ama meel kaleeto ka fog uu ka soo gato si ay ugu noqoto caddeynta dahabka uu asaga haysto si loo siiyo alaabtii uu u baahnaa waxaa qasab ahayd in uu markaasi haysto systemkan loo yaqaano paper billska si fudud haddii aan u qeexo systemkaasi waa uun jeega caadiga ah ee hadda qofka marka la siiyo uu bangiga kaga soo qaadan karo lacag taasoo caddaynaysa in qofkaasi bangiga lacag u taalo ama qofka soo siiyo uu wakiil uu ka yahay oo asaga bangiga laga aqoonsan yahay kadib marka waxaa timid systemkan andhehe systemkaas paper billska waxaa la soo isticmaalayay 617 sano ilaa 907 sano oo systemkaasi uu shaqaynayay kadib waxaa loo soo gudbay in dahabka laga dhigo standard ama aas muhiim uu u noqdo waxyaabihii iyo ganacsiyadii kaleeto ee nolosha ah isla systemkaasi dahabka iyadoo lagu jiro ayaa waxaa ka daba yimid systemkan loo yaqaano Bretton Woods oo ah markii dambe caalamka qorshahan dahabka ee lagu xiray lacagta Mareykanka si qofkii u baahan in uu waxyaabaha baahidiisa ama asaasiga baahidiisa uu u helo waxaa qasab ku ahayd in uu helo markaasi lacagta dollarka Mareykanka si kadibna uu u helo waxa uu samayn jiray in uu soo qaato dahab ama lacagta Mareykanka ayaa waxaa loogu bedeli jiray dahab kadib markii dadku ay wada qaateen dahabkii lacagtii Mareykankana xaashi ayay ahayd dahabkii Mareykanka markii uu arkay in uu dahabka sii dhamaanayo waxaa lagu heshiiyey systemkan Bretton Woods oo bilowday 1944 dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka taasi oo lagu heshiiyey 1971 end of gold standard oo ah systemkii looga baxayay qaabkii hore loogu soo shaqeeyay ee ahaa in qofka si uu u helo dollarka uu qaato dahabka kadib systemkaasi markii laga soo gudbay marka waxaa timid oo la sameeyey in qof walba ama waddan walba caalamka ka mid ah oo loo xoreeyo in uu asaga lacagtiisa uu ku shaqeysto oo wax ku samaysan karo oo wax ku soo gadan karo si meesha looga saaro systemkii loo yaqaanay end of gold standard kadib markii arrintan timid marka waddamadii ay u xoroobeen in la suubiyo lacagtiya marka waxaa lagu heshiiyey lacagtu inaysan yeelan qiimo jaan go'an oo ah maanta haddii $100 uu joogo boqolkiisa beri inuusan sii joogin 100 oo ah in mar walbo lacagaha la isbarbar dhigo maalinba qiimo hawada hehaabayo ee leedahay lacagtaasi taasoo ka dhigtay in dhammaadkii systemkii dahabka loo gudbo systemka warqadaha oo waddan walba oo isticmaalo lacag aan jaan go'neen taasi oo maalinba meel taagan kadib markii fursaddan soo baxday ayaa annaga waxaa noo suura gashay in aan helno isku beddelka ama isku sarifka lacagaha qalaad ee waddamadaasi kala duwan ay leeyihiin okay haddaba yaa ka shaqeeya marka suuqan sarifka lacagaha qalaad ee forex-ka yaa ka shaqeysta waayo suuqan waxa uu soo socday in ka badan ilaa 400 oo sano ilaa 300 oo sano isagoo soo mariyay systemyo kala duwan systemkan xaanshada markii loo soo gudbay ee lacagaha lagu kala sarifanayo markiisii ugu horreysay waxaa qayb firfircoon ama qayb aas-aas ah ku lahay bangiyada dowladaha bangiyada dhexe shirkadaha waaweyn iyo sidoo kaleeto qoladan loo yaqaano investment and hedge funds ee ah dadka maalgelinta suubiyo iyo qoladan loo yaqaano hedge funds ee ah qola ka madax bannaan brokerska iyaga lacagtooda si gaara u haysto una shaqeeya shirkadaha waaweyn kana badbaadiya mararka qaar dhaqaale burbur ama dhibaato dhanka dhaqaalaha ah markii ay soo gaarto si loo badbaadiyo waxa la raadiyaa shirkadahan loo yaqaano hedge fundska sidoo kaleeto forex companies ayaa ka mid ahaa oo brokerada loo yaqaano laga soo bilaabo sanadii 2006 waxaan fursad u helnay in aan suuqan qayb ka noqono iyadoo ay noo fududeysay isticmaalka internetka waagii hore way adkeed qof shakhsi ah in uu suuqan ka qayb qaato oo uu ka ganacsado kadib markii aan helnay fursaddan suuqa sarifka lacagaha qalaad ayaa waxaan u soo gudubnay sidii aan u isticmaali lahayn
shuruudo iyo sababo jiro iyo suuqa in qofka markaasi raba in uu kusoo biiro uu haysto waxa loo yaqaano broker ama dilaal idin dhexeeya adiga iyo suuqii. waxaan soo ogaanay taariikhda iyo sida ay ku timid forexiska. haddana waxaan rabnaa inaan ogaano yaa forexkii ka shaqaysto oo aan kusoo sheegnay bangiyada waaweyn ee dowladaha iyo bangiyada berivaadka loo leeyahay, shirkadaha waaweyn iyo sidoo kaleeto 2006 wixii ka dambeeyey oo loo ogolaaday dadka shakhsiga ah in ay kusoo biiri karaan. okay suuqan sidee ayuu u shaqeeyaa? su-aal ah ayaa imaanaysa. qofka raba marka inuu suuqan ka shaqaysto, suuqan sarifka sidoo u shaqeeyaa, maxaase looga shaqeeyaa, maxaa la qabtaa? waa su-aal muhiim ah oo loo baahan yahay qof walba oo suuqan raba in uu isweydiiyo si uu uga fahmo waxyaabo fara badan. okay haddii aan marka sawirkeena dib ugu noqono, sidoo u shaqeeyaa suuqa sarifka lacagaha qalaad ee loo yaqaano forex. forex waxa ay u shaqeysaa, waxa la kala bedelaa waa laba lacag oo ay kala leeyihiin laba wadan, adiga oo markaasi ka faa'iideysanaya isbedelka labadaasi lacag ka dhexdhaca. tusaale waxaan usoo qaatay sawirkan hortiina ka muuqda waa euro oo ah lacagta Yurubiyaanka ama midowga Yurub iyo lacagta dollarka oo ah lacagta Mareykanka. labadan lacag marka si aad suuqii ugu shaqaysatid waxaa u baahan tahay laba lacag oo kala duwan in aad kala sarifto, taasoo la yiraahdo suuqa marka la joogo lacagta koowaad ay kugu soo horeysaa base currency iyo lacagta labaad oo ayadana loo yaqaano counter currency ama code currency. muhiimadda waxa ay tahay inuu qofku fahmo in la kala bedelo lacago ay leeyihiin laba wadan oo kala duwan. si lacagihii loo kala bedelana waa in ay lacag ku soo horeysaa lacagna ku dambeysaa. magacyada loo kala yaqaanana waa base currency iyo code currency. okay naanaysi leeyihiin marka lacagaha suuqan yaala, naanaysi ayay leeyihiin oo la rabo qofka in uu ogaado. keliya waa wax un macluumaad ah, laakiin qasab kuguma aha, shuruudna kuguma aha oo inaad ogaatidna qayb ka mid a aqoontaada ayay kaa kabi doontaa. sida caadiga ah marka lacagaha ugu waaweyn markii la joogo suuqan forexka waxa ay leeyihiin naaneys oo aan sawirkan hortiina ka muuqda u soo qaatay tusaale kooban si uu qofka wax badan uga fahmo. tusaalaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad ayaan dul istaagaynaa, inta dambe dhimanna idinka ayaa dhammaystiran doona hadduu allah awood la yiraahdo. aan ku bilaaba lacagta. qaybtan kore waxaa noo yaala qoraal symbol, country iyo currency iyo nickname, taasoo ah symbol waa magaca lacagta calaamadda suuqa marka la joogo loo yaqaano. magaca waa calaamadda loo yaqaano oo ah xarfaha o iyo s iyo da markaa aragtid in aad u fahantid in ay tahay lacagtaasi lacagta dollarka Mareykanka. wadanka laga leeyahay waa wadanka United States oo ah Mareykanka. currency-ga ama lacagta magaceeda waa dollar. nickname-ka ay leedahay ama naaneysta ay leedahayna waa pack oo loo yaqaano lacagta dollarka Mareykanka. isla sidoo kale haddii xarfaha u r a aragto indhahaagu ay qabtaan waa euro oo ah lacagta ay leeyihiin wadamada ku midowga Yurub laisku yiraahdo eurozone, taasoo suuqan marka la joogo loo yaqaano Viber. haddii aad maqasho magacaasi Viber waxaa laga wadaa lacagta euro. isla sidoo kale JPY symbolka noocaas haddii aad aragtid ama jabaya waa lacagta Jabaanka oo la soo gaabiyey oo 3 magac la siiyey. magaca wadanka laga leeyahayna waa Jabaanka. lacagta magaceeda waxa la yiraahdaana waa yen. naaneysta ay leedahayna sidoo kaleeto yen ayaa loo yaqaanaa. inta dhiman waa isla sidoo kaleeto isku mid oo wadanka iyo magaciisa iyo lacagta oo leeyahay iyo xarfaha laga soo gaabiyey oo aydan hadduu ilaah yiraahdo aan qaybta dambe ku baran doono. okay isbarbardhig awoodda suuqa forex iyo suuqyada kale ee stock exchange-ga loo yaqaano. haddii aan suubino tusaale ahaan average daily trading volume oo ah qiyaastii maalinle suuqan lacaga intee la eg ayaa isku dhaafa. waxaan soo qaadanay suuqa forexka iyo 3 suuq oo kaleeto oo ka mid ah noocyada stock loo yaqaano. nooca koowaad ee hortiina ka muuqda calaamadan bluega ah ee dheer waa forex market oo bardhaygii lagu suubiyo wax ka badan 5 trillion oo ah lacagta dollarka Mareykanka.
isla sidoo kaleeto waxaa noogu xigo New York Stock Exchange oo asagana bardheygii lagu suubiyo 22.4 bilyan oo ah dollarka Mareykanka. sidoo kaleeto Tokyo Stock Exchange ayaa jira asagana oo lagu suubiyo maalintii 18.9 bilyan oo ah lacagta dollarka Mareykanka. waxaa ugu dambeeya London Stock Exchange oo asagana maalintii lagu suubiyo 7.2 bilyan oo ah lacagta dollarka Mareykanka. haddaba haddii qiyaastan hortaada ka muuqata ay isbarbardhigaan waa ujeedaa oo Soomaali waxay tiraahdaa sadar muuqdaa su'aalka dhan. lacagta iyo awoodda ugu badan iyo dhaqdhaqaaqa ugu badan waxa ay ka dhacdaa suuqa sarifka lacagaha qalaad ee loo yaqaano forex market oo lagu kala bedelo lacag dhan ama ka badan 5 trilyan oo ah dollarka Mareykanka. tanna waxa ay ku siinaysaa ama ay ku muujinaysaa awoodda markii la isbarbardhigo suuqyada kale ee caalamka iyo forex-ka in ay tahay awoodda koowaad forex-ta taasi oo awood badan ama khayr caadi ah ay halkan kaaga muuqato. okay maxaa noo xiga marka luqadda suuqan marka qofka raba suuqan in uu ku soo biiro ee raba in uu ka ganacsado muxuu u baahan yahay marka hore in uu sameeyo waxyaabaha aas-aasiga ah ee la raba qofka in uu barto. waxaa ka mid ah qoraaladan aan hortiina kasoo muujiyey ee loo yaqaano time frame, candlestick, sell iyo buy, pips iyo lot size, sidoo kaleeto stop loss, take profit, support, resistance, indicators iyo entry point. way badan yihiin xaqiiqdii noocyada la raba in aad suuqan ka baratid, laakiin marka hore ee aad rabtid in aad soo gashid waa furaha la raba qofka ugu horeeya in uu fahmo ayay ka mid tahay. waxyaabahan waxaa lagu bartaa trading view-ga oo asagana aan cashir ka diyaarinay oo cashirkan ka horreeyey. haddii uu ilaahay yiraahdana soo fiirso cashirkaasi qayb ka mid ah waad ka fahmi doontaa. laakiin muhiimadda ugu horeysa marka waxay tahay qofka in uu fahmaa waxyaabahan hortaada ka muuqda waa qayb ka mid ah luqadaha oo suuqan sarifka lacagaha qalaad iyo sidoo kaleetaba waxaa loo isticmaalaa suuqyada kaleeta ee stock exchange-ga oo hadda aan kasoo sheekeynay. laakiin maadaama anaga aan ka ganacsano suuqan sarifka lacagaha qalaad waxaan u baahannahay ugu horeen maxaa noogala baahan yahay si aan suuqan uga ganacsano. tusaalahan aan kasoo qaatay sawiradan waa baygii iyo selkii iyo candlestick-yadii oo hortiina ka muuqda. insha allah hadduu ilaahay yiraahdana intaan waa hordhac, laakiin waxaan muxuu ahay sheeg aan ku faahfaahin doonaa cashiradeena damba ee soo socda. okay sideedda lacagood ee ugu weyn suuqan sarifka lacagaha qalaad markii la joogo. sawirka kaaga muuqda dhanka bidix ee muuqaalka waa 8 lacag ee ugu weyn marka la joogo suuqa forex-ka kuwaasi oo loo yaqaano major currencies. lacagahan iyo lacago kaleeto fara badan ayaa suuqan sarifka lacagaha qalaad looga ganacsadaa, laakiin 8 lacag ee ugu awooda badan ee suuqan ugu dhaqdhaqaaqa badan xamaasadda ugu badanna leh waa 8 lacag ee ugu waaweyn oo loo kala yaqaano lacagta dollarka Mareykanka oo USD la dhaho, sidoo kaleeto lacagta euro oo ayadana loo soo gaabiyo EUR iyo lacagta Canadian dollarka, sidoo kaleeto lacagta Ingiriiska oo loo yaqaano GBP oo ah Great Britain pound iyo sidoo kaleeto CHF oo loo yaqaano lacagta Swiss franc ee waddankaasi Switzerland. iyo waxaa kaleeto ka mid ah 3 lacag ee dhaca bariga dhexe iyo qaaradaha fogfog ee AUD ee Australian dollarka iyo sidoo kaleeto New Zealand dollarka iyo JPY oo ah Japan yen oo ah lacagta 8aad ee ugu awoodaha badan suuqan sarifka lacagaha qalaad. okay 8 lacagood kaliya kuma koobna forex waa uu ka weyn yahay, laakiin 8 waa 8 waddan ee ugu dhaqaalaha fiican ugu dhaqdhaqaaqa badan ee lacagahooda inta badan xamaasad ka leh suuqan sarifka lacagaha qalaad. okay haddii intaasi aad soo ogaatay waxaa u baahan tahay xilliyada suuqa uu furan yahay iyo sidoo kaleeto 3 magac ee kaaga soo horbaxaya mar walba oo aad joogtid suuqan sarifka lacagaha qalaad waxa ay kala yihiin iyo in aad ugu yaraan macluumaad kooban ka haysatid. suuqan waxa uu furan yahay 5 maalin ee shaqada laga soo bilaabo maalinta Isniinta ah ilaa maalinta Jimcaha ay sii dhamaanayso laga gaaro ilaa habeenka Sabtida ay soo galayso 5 saac ama 12 habeenimo ilaa laga gaaro ayuu suuqan sii shaqeeyaa. waxaana jirto 4 xilli
oo suuqan uu furan yahay. nooca koowaad waxaa loo yaqaanaa Sydney oo ah waddanka Australia iyo New Zealand oo la isku daray, Tokyo oo ah Japaanka, iyo sidoo kaleeto London oo ah suuqa Yurub, iyo sidoo kaleeto New York oo ah suuqa Maraykanka iyo Canada oo la isku daray. haddii marka aan u gudubno saddexda, lacag walba waa inay 3 xaraf ka koobnaataa, labada hore oo ah waddanka iyo kan saddexaad oo ah nooca lacagta ama magaca lacagta. tusaalahan waxaan u soo qaatay lacagta loo yaqaano NZD oo ah New Zealand dollarka. haddii xaaladan oo kale aa aragtid marka ay 3 sawir hortaada kaaga soo muuqdaan ama 3 xaraf aan dheh hortaada kaaga soo muuqdaan, laguu soo gaabiyey, ogow ama xasuusnow labada magac ee hore ama labada xaraf ee hore waa waddanka magaciisa, xarafka dambe saddexaadna waa magaca ay leedahay lacagta oo ah NZ oo laga soo gaabiyey New Zealand, iyo D-da oo laga soo gaabiyey dollarka. okay, sidee suuqan loo taxliiliyaa marka? haddii intaas aad soo fahantay, suuqan waxaa jiro noocyo badan oo loo taxliiliyo oo la rabo qofka in uu ogaado. waxaan u kala qaadaynaa ilaa 3 nooc. nooca koowaad oo ah technical analysis, iyo nooca labaad oo ah fundamental analysis, iyo nooca saddexaad oo loo yaqaano sentiment analysis, taasoo ka timaada dareenka iyo shucuurta qofka shakhsiyan. labada kale ee loo yaqaano technical analysis oo ah nooc farsamada gacanta ah, iyo nooca labaad oo ah fundamental analysis oo asagana la rabo in aad suuqii si qoraal ama raadin ama aqrin ahaan aad u taxliiliso. la rabo in aad ogaato lacagaha aad ka ganacsanaysid wadamada laga leeyahay xaalad noocee ah ayay ku sugan yihiin. sida hortaada haddaba ka muuqata, labada nooc ee ugu caansan suuqan lagu taxliiliyo waa nooca koowaad oo ah in aad kandhaladii iyo indicatoradii suuqa aad la socoto oo aad akhriso oo aad fahanto sida ay wax u dhacayaan, iyo nooca labaad ee fundamentalka oo la raba in aad ku xirnaato websiteyada, tviyada, wadamada lacagahooda aad tiragaraysid si aad u hesho xog kuugu filan xaaladda guud ay ku sugan tahay lacagtaasi, iyo waddanka laga leeyahay xaalad noocee ah ayuu ku sugan yahay. waxyaabaha saameeya waxaa ka mid ah doorashada, qalalaasaha waddankaasi ka dhacay, dhaqaalaha waddankaasi ee kasoo baxay newsyada, xaalad noocee ah, bangiyada waddamadaasi laga leeyahay, haddii ay ribada jaraan iyo haddii ay ku daraanba saameyn ayay ku yeelataa suuqan, taasoo la rabo qofka cusub in uu ka fahmo macluumaad aad u fara badan. okay, noocan waa noocii fundamentalka. marka hore ayaan ugu soo sheekeynay maxaa lagaaga baahan yahay, waa siyaasadda waddankaasi inaad ogaato, bangiyada dowladaha dulsaar ama jaris waxa ay sameeyaan, dhaqaalaha guud ee waddankaasi, awoodda maalintaasi ay suuqa ku leedahay lacagtooda, iyo sidoo kaleeto in aad mar walba isha ku haysid waddankaasi madaxdiisa ugu sareysa haddii ay hadlaan ama ay social mediaha soo geliyaan akhbaar ku saabsan waddankaasi oo ayadana saameyn karta lacagta waddankaasi laga leeyahay. iyo sidoo kaleeto noocii labaad oo aan kasoo sheekeynay technical analysiska oo ah nooc aad muhiim u ah, lana rabo in qofka uu barto sida ay u shaqeeyaan candlestick-yada, sida loogu soo darsado indicatorada iyo xaaladaha markaasi lacagta ay ku sugan tahay si farsamo ahaan. insha allah hadduu ilaahay yiraahdana cashiradeena dambe ee soo socda ayaan ku kala falanqayn doonaa si qofka uu u raadiyo macluumaad markaasi ku filan. laakiin marka ugu horeysa waxa aan rabna ayaa ah in hordhaca hore suuqan maadaama aad ku cusub tahay, la raba in aad fahantid in ay jirto 3 nooc oo loo taxliiliyo, kadibna loo sii kala saaro 2 nooc oo ah midna fundamental midna ah technical analysis. haddii aad intaas soo fahantay marka waxaan soo gaarnay gunaanadkii qaybteennii koowaad ee waa maxay xaqiiqda dhabta suuqa sarifka lacagaha qalaad iyo sida uu u shaqeeyo, yaa ka shaqeeyo, sidee ayaa loo taxliiliyaa, iyo qaybaha luqadda forex-ka laga rabo in aad baratid. haddaba inta haddii aad soo gaartay waxaad timid qaybteennii koowaad dhammaadkeeda. waxaana rajaynaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo in aad wax badan ka fahanteen. haddii ay kugu adkaatay ama wax su'aala ah qabtid, fadlan nagula wadaag qaybta hoose adiga oo channelkeena qayb ka noqonaya. sidoo kaleeto waxaan suubinay canal ama channel telegram ah, taas oo aan ugu talagalnay in aan bulshadeena Soomaaliyeed ee afka Soomaaliga aan ku hadlayo fahmi karta in aan kula wadaagno
aqoonta aan u leenahay suuqan sarifka lacagaha qalaad si aan u soo saarno dad yow badan oo Soomaali ah oo suuqan ka shaqeysta heerna ka gaara hadduu Allah awood la yiraahdo fadlan ha iloobin in aad channelkeena subscribe saarato si casharada soo socda ee damba aad qayb uga noqoto iyo si aad u hesho macluumaadka ku saabsan suuqan sarifka lacagaha qalaad intaanu dib damba casharka labaad ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu